السلام عليكم غير شرفت لك soo dhawaada kulili TV caawa halka waxaan kugu soo gudbinaynaa qaabka marwadaada loo keensaday in ka horbiye baxdo ma doonaysaa in xaaskaaga mar walba ka horbiye baxdo aadna ku jeclaato waxaan kuu sheegayaa qaabka ugu haboon ee dumarka lagu tago xilliga galmada si ay u daranto raaxo macaan haddaba raaco samee qaabkan aan ku sheegi doono qaabka koowaad galmada ee ugu muhiimsan dumarkana la taahan macaankiisa waa sidaan ugu horeyn adinkoo soo qubaystay soona cadaysaday jawiga qolkuna yahay mid qabow kulaylna aan ahayn ama meel dhexaad ah kulanka ku bilow shumis iyo salaaxmo aad gabadha jirkeeda si dabacsan gacmahaaga ugu salaaxayso shumiska iyo salaaxmada kuwada ugu yaraan 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo kana salaax meelaha gabadha dareemaheeda ku badan yahay sida laabta qoorta iyo boodyaha iyo meelaha aad isleedahay gabadha dareemaheeda uu ku badan yahay sidoo kale ka salaax xubinta taranka iyo meelaha u dhow si tartiib ah oo gacan dabacsan ah digniin marnaba ayadoo bahalkeeda qoyin ama aadan saliid marin hala aadin taas oo sababi karta inay gabadhu dareento xanuun beddelka ee dareemi leed raaxo macaan marka gabadha dareenkeedu kaco oo bilowdo inay rinto si saa'id ahna isku ka duubto markaas waa inaad bahalkaaga geliso haddii meesha qoyin tahay haddaysan qoynayn aad saliid mariso si aysan gabadhu u dareemin xanuun adiguna aadan u dareemin xanuun qaabka koowaad ee gabadhu aad u dareento macaanka galmada waa marka bahalka raggu aad u garaaco ama taabto qanjirka ku yaal kintirka hoostiisa xaaskaaga gadaal ayaa ugu imaanaysa adiga oo farjiga uga galmaanaya iyada oo jiifta adigana jilbaha ayaad dhulka dhiganaysaa lugaheeda kor ayaad u taagaysaa marka aad qaabkan samaynayso hana iloobin inaad barkin hoosta ka geliso si alaabteeda bannaanka u imaato marka aad qaabkan samaynayso jirkeeda aad ayuu kululaanayaa waxayna dareemaysaa raaxaada u macaan qaabka labaad waa in ninku fadhiisto xaaskuna ka dul marto bahalkiisana si tartiib ah ugu fadhiisato hawshana isla wadaan ninka waa inuu gabadha naasaheeda ka marmariyo carabka foodiisa barida iyo naasahana uu ka salaaxo dhexdana qabto oo si tartiib ah u boodbootiyo sidaas marka aad samayso waxaad arkaysaa xaaskaaga oo raaxo darteed la ilmeynaysa aadna u riimaysa iyadoona is ogeyn riinkaasna waxaa ka keenaya raaxada macaanteeda hana ceebsan oo ha dhibsan qaabka saddexaad ee ugu muhiimsan waa inaad xaaskaaga dhinac u seexiso gadaalna aad uga imaato adigoo uga galmoonaya farjiga hallu kor iskaga qabo oo lugaheeda dhexgal adigoo farjiga uga galmoonaya naasaha u salaaxa qoortana ka shumi marna dhegta meesheeda jilicsan ka shumi oo ka nuug dhexda iyo cajirada ka salaax iyo bahalka agagaarkiisa waxaadna arkaysaa xaaskaaga oo raaxo daraaddeed la qaylinaysa iyadoon is ogeyn intaan aan kuu sheegayo wixii aad ku darsato waa sidaad ku qanci karta xaaskaaga xilliga galmada haddii aad muuqaalkan ka heshay waxna kugu soo kordhiyo fadlan videoga like saar siina share garay si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo wadno waadna ku mahadsan tahay daawashadaada